السلام عليكم داوديال soo dhawaada Jamiil way waxa idin la hadlaysaa Jamiil Ismaaciil soo dhawaada I'm gonna wait to here السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Abdullahi, thank you for coming. Thank you. Sogal. Hanad, so doable. Wa alaikum salam. Saeed, Muhammad. So doable adinkoo dhan. Waxyara meeshaan ku qorqorooya marka. Welcome. Nasra Abayo, thank you. Wakaqaade Ahmed. Yusuf wa alaikum salam. Ramadan Kareem, Jamal. Faiso Mira Abayo Sodo. Alaikum salam. Ramadan Kareem. So do other guys. So do other colleagues. Song haduu se kaa muuqanin madaaba soo of course way ga muuqdaa soonka yes bin Arfa Abdulmajid kulligiin soo dhawaada Jihan soo dhawaayo thank you guys Abshir soo dhaw Yusuf dadka hadda waxaa la dhahaa maana wada salaantid marka galabtayda horta the first 5 minutes I'm going to say hi to everybody yaa kaloo soo galay I don't see anybody Shukri Abayo soo dhaw Sulaiman thank you Sulaiman Abo much love thank you magacayda qaar hadda kan fiiri CXN how did that supposed to sound and soo dhawaada meesha halkaana waxay ku qorqorayaa and I'm going to start momentarily like give me 2 daqiiqo 3 daqiiqo see ya and share no wrong okay and muxuu ahayto and waxaan rabaa inaan ka hadlo laba arrimood and arrinta ka taagan muxuu ahayto gacanka carabta and Gulf crisis ka iyo thank you iyo waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo go'aan ka soo baxay maxkamadda madaxweynaha Donald Trump markii uu soo saaray executive order-ka go'aankii madaxweynenimo uu dadka ku celinaya 7 wadan ka yimid markii hore markii dambana uu ka dhigayay about muxuu ahayto 6 wuxuu sameeyay waa tii la celiyay go'aankii markii koowaad waa haddana mar labaad uu yiri waa soo biyeeyay marka waa soo biyeeyay oo muxuu hayto waa soo yara bedelay sababtoo ah waxa lagu haystay waxa la dhaho religion qaybta diinta wadankan haba u badnaadaan dadaan muslimka diimo kala duwan haysta laakiin Christianity-ga muxuu ahayto ugu badan tahay haddana saasay tahay wadanka asaas ahaan wuxuu ku taagan yahay inaan dadka inaan diinta lagu kala soocin ayuu wadanku ku taagan yahay sidaas darteed waa meelaha badankooda wadamada waqooyiga muxuu ahayto westiga ah ay reer galbeedku iga duwan yihiin wadamo kaleeto marka anyway history dambe gadaal inaan ugu noqdo ma rabo marka wuxuu sameeyay markii la soo biibiyay 2 maxkamadood ay qaliyay intuusan go'aankii muxuu executive order-kii uusan dhaqan galin muxuu hayto oo 6 wadan oo laga soo reebay Ciraaq ay muxuu hayto lagu celinayay oo Soomaaliya ku jirto marka midna waa tii Hawaii ee celisay midna waxaa laga celiyay kii Hawaii soo horeeyay galabuu dhacay waa ta aniga live ma hadmis video waan ka sameeyay ma xasuustay anyway waxbaan ka sheegay waa laga wada hadlay kaasa xoogaa intii ugu badneed xitaqeeladii buuqii wixii dhan ay raaceen galabta Hawaii go'aankeeda la gaaray isla subaxaas maxkamad Maryland ku taalana maxkamadii Hawaii ay raacday oo 7 in the morning ayuu soo baxay telefoonku ka soo dhiiqliyo meeshaan ku arkay
marka labadoodii go'aan oo labada maxkamadood midna Hawaii ku taala midda dhanka DC ku taala ay go'aanada ka gaareen labadiiba racfaan ay ka qaadatay muxuu ahayd dawladda midna wuxuu aaday maxkamadda la dhaho Ninth Circuitska midna Fourth Circuitska maxkamadda darajada afraad iyo darajada sagaalaad kala ah ayay kala aadeen marka mid waa tii toddobaadkii la soo dhaafay go'aan ay gaareen oo 13 judge inta la soo fariistay saddexna ay madaxweynaha la safatay 10na ay la safatay muxuu ahayto dadka oo dadkii u doodayay oo go'aankii sidii lagu celiyay waa tii madaxweynuhu uu ka qaatay muxuu ahayto racfaan ayuu qaatay Supreme Court-ka loo diray kayskii labaad oo asagana maxkamadda ku dhex jiray ayaa maanta go'aan laga soo gaaray mar kaleeto oo waxaa la yiri kan wuxuu ahaa unanimous si muxuu ahayd waa la isku wada waafaqay waxa marka kii last week toddobaadkii la soo dhaafay muxuu ahayd go'aanka laga gaaray wixii go'aanka lagu gaaray oo madaxweynaha lagu hor istaagay ayaa waxay ahaayeen in muxuu ahayd religion class-ka diinta inaan dad lagu kala sooci karin markay noqoto arrimaha socdaalka ama qof sidii fiisa loo siin lahaa qofkii la keeni lahaa inaan taas lagu kala sooci karin madaxweynuhuna uu khalad sameeyay constitutionally dastuur ahaan taas dar ayaa lagu celiyay tagalabtayto horta tawararkiisa wuxuu ku noqday kadeed tawararka always kuwa muxuu ahayd jamhuuriga waxay dhahaan oh yaan serious loo qaadanin wax weyn ma ahan kan ma ahan galabtayto the actual code ruling go'aanka ee maxkamadda gaartay ayuu tawararkiisa xilliguu soo daayay handleka ama magacu uu ku soo daayay everything lagu soo wada qoray oo meeshay ku wada jireen oo muxuu ahayd ay ku yaaleen tawararkii marka hadda madaxweynaha telefoonkan intuu qaato uu saan ka siinay 24 saac kiyaa kara fara badan ayuu u keenay sababtoo ah meel fog balooma doonayo wixii muxuu ahayto la rabo in looga soo horjeesto marka ka bacdi tawararka ayaa la isticmaalay marka isku go'aan ayay gaareen oo madaxweynaha muxuu ahayd injectionkii sidii ayay u celiyeen oo go'aankii ahaa hal la holiyo oo lama dhaqan gelin karo sharcigan isku si ayay u sameeyeen laakiin laba waday kala mareen tii la soo dhaafay oo toddobaadkii la soo dhaafay go'aanka ay gaadhay wuxuu ahaa in muxuu ahayto lagu celiyo diinta isticmaaleen kuwaana waxay isticmaaleen inuusan madaxweynuhu awoodda ah inuu go'aan soo saaro dastuur ahaan sharcigan uusan lahaynba oo muxuu ahayto uu hal qof uu yahay arinta immigrationkuna ay hal entity ama hal qof ama hal waaxo dawladda ah sababtoo ah madaxweynuhu executive branchigu madax u yahay oo dawladda qaybta madaxweynaha aysan hal geesa kaliya uu saarnaan karin go'aanka sidaas darteed uu sharci darro yahay muxuu ahayto sharcigan uu soo saaray uu dadka ku holinayo uu ku celinayo oo wadamadan ka yimid iyo inaan muxuu ahayto diintana way isticmaaleen oo xoogaa muxuu ahayto iyo qofka meeshuu ka soo jeedo ayadana waa la yara isticmaalay laakiinse labada go'aan hal go'aan ay wada gaareen laba wado kala duwan ay soo mareen tii galabtay maantayna soo baxday duhurkii miyay ahayd ma aqaan 1 pm 2 pm meelahaas maray ahayd ayaa muxuu ahayto go'aanka la gaaray wayna ka qaadan doonaan racfaan sababtoo hadda Supreme Court-kuba case-ka aaday either or labada kor iyo hoosba case-kii Supreme Court-ka ayuu aaday marka wixii Supreme Court-ka ka soo baxo ayaa la arki doonaa madaxweynaha uu neefsan laayahay talaabo madax uu kor u soo qaadaba muxuu ahayto dawladda iyo Supreme Court-ka ay maxkamadaha hortaagan sababtoo ah remember dawladdu saddex bay u kala baxdaa awoodda maxkamaduhu ma ahan awood la soo doorto waa dad marka meesha la geeyo waa awood ka madax bannaan kuwa la soo doorto sababtoo ah siyaasiyiintu waxay mar walba waxay ka baqaan kursigaaga dib u heli doontaa ma lagu jeclaan doonaa dadweynaha maxay la tahay sidaas si aysan u noqonin maxkamadaha lama soo doorto maxkamadaha madaxweynaha doorta muxuu ahayto qoladan la soo doortaa hal mar isku raacda shaqada hal maraa la siiyaa judge-ka federaalka weligiisna meeshaas kama tago waa for life marna kama tago meeshaasay joogaan judge-ka oo muxuu ahayto dawladda hoose iyo kuwaas in la doorto waa laga yaabaa laakiin federal judges-ka waa la soo gudbiyaa xagga muxuu in la isku soo raaco waaye oo sharci dejiyayaasha legislatorska ayaa soo gudbiya ayagaa soo ogolaada
marka ayagu ma ku hoos jiraan dalada ah inay ka baqaan in awoodooda ama waxay sameyn lahaayeen ay saameyso dadku say u soo dooran lahaayeen iyo inay muxuu taas ay go'aankooda saameysan lagama baqaayo markii hore wadanka la sameynayna saas loo sameeyay waxaa soo haray arrin aad la weydiiyay qadar oo muxuu ahayto la takooray oo muxuu ahayto ay ka soo horjeesteen wadamada ku yaala gacanka carabta muxuu ahayto what's going on why people saying be respectful anyway don't mind them iska dhaafo qof kasta afkiisa asaas iska leh waxaan ka hadlayaa arrinta waxaan ku xujinayaa golf crisis-ka waxa ka jira gacanka qadar ayaa muxuu ahayto la xagliyay oo gees laga maray waxa gees ka maray Sacuudi Carabiya Bahrain Masar muxuu ahayto Imaaraadka Carabta kulligood way ka wada safteen maxay ugu soo gabadeen oo dhaheen muxuu ahayto waan idinta kornay oo waan idin ciirinaynaa waxay dhaheen waxay lacag siiyaan oo ay kharash galiyaan Muslim Brotherhood ka kuwa la dhaho akhwaan muslimiinka oo argagixisada ah oo argagixisada ayay nimankaan lacag siiyaan marka la gadaala u yiri celiyo marka la rabe sheekada taas waaye waxa la isticmaalay oo isticmaaleen Sacuudiga iyo muxuu ahayd Imaaraadka ayaa ugu horeeya qadar waa wadan aad u yar wadamada I think hadaanan statistically xisaab ahaan khaldaneen wadanka adduunka ugu taajirsan inuu yahay ama wadamada ugu shanta ugu koreyso ku jira wadan aad u yar waayo marka hore wuxuu ku yaalaa meel peninsula ah oo gacan ah oo dhulka xuduud la leh meel aad u yar muxuu ahayd wuxuu xuduud la leeyahay Iran wuxuu la leeyahay xuduud Sacuudi Carabiya meesha kaliya oo dhul ahaan ah oo muxuu ahayd xuduud dhuleed oo qadar leedahayna waa Sacuudi Carabiya taas strategically markii loo eego muxuu ahayd meesha ay ku taalo qadar in ay muxuu ahayd fakarto oo muxuu ahayd siyaasadeeda dibadda ay aad uga fakarto sababtoo ah qadar dhul weyn ma haysato waa wadan aad u yar oo military weyn intuu yeesho ma weynaan karo in muxuu ahayd dhul ahaana meelo badan oo laga soo galo male haday Sacuudiga kaliya ay isdiriraan oo kaleeto muxuu ahayd meel u weecanaya malaha waana mid hadda haysata taas ayaa qadar waxay ku kaliftay independent inay noqoto oo gacanka way ka tirsan tahay oo madax banaanaato muxuu ahayd siyaasad ahaan inay madax banaanaato siyaasad ahaan qadar waxay awooday in ay Israa'iil saaxiib la noqoto Iran inay saaxiib la noqoto Mareykanka base-kooda muxuu ahayd xiradooda military oo gacanka ku taala mid ugu weyn waxay ku taala qadar oo meeshaas oo dhan gacanka ku taala Mareykanka saaxiib ay laahayd in ay ayadu aysan soo hoosgelin qoladan ay Imaaraadka iyo Sacuudiga horjoog ay u yihiin mar walba remember wadan gadaal markii taariikhda loo celiyo ama siyaasadda muxuu bariga dhexe la eego kale nimankii ugu cadcadaan jiray muxuu ahayd Saddam Hussein ayuu ahaa muxuu ahayd waxa kaloo jiray Gaddafi oo kale nin laga baqi jiray ayuu ahaa asaguna nimankaas oo dhan waxay rababa ku tagaan waa tageen marka niman cusub hadda soo baxay marka Sacuudiguna muxuu ahayd dhaqaale ahaan muxuu ahayd siyaasad ahaan Mareykanka iyo asaga muxuu ahayd waa fariyo faraanti ma kala baxaan wax alla waxaan isugu jirin ma jiraan marka qadar waxay sameysay sababtoo ah qadar muxuu ahayd meesha ku taala darteed way liidataa dhulkeeda dhul weyn ma ahan border fiican ma ay lahan oo waxay kaliya Sacuudiga kaliya ay waxay la wadaagtaa dhulka oo borderka ama muxuu ahayd dhul meel loo maro leh waa Sacuudiga kaliya meel kale loo maro ma jirto taas qadar waxay ku kaliftay in siyaasadeeda dibadda ay noqoto siyaasad aan cadaan iyo madow midna ahayn siyaasad markay muxuu ahayd cadaan iyo madow ay ka baxdo cadaan iyo madow waxa waaye ama inta wax inta u dhaxeeya inaan la helin black and white ma aha siyaasadda qadar cadaan iyo madow midna ma ahan waa siyaasad muxuu ahayd gray ah oo cadaanka iyo madowga u dhaxeysa sababtoo ah qadar waxa ku yaala Xamaas xasuusnow waxay leedahay muxuu ahayd xisbi siyaasadeed waxay degan yihiin qadar
ونمنكا محويتو أيجي إسرائيل إسكت تاجين هينو 24/7 West Media قريت قلبيت كإدهان وأرجع حسوا وكان also وحقدر كويا على بيس كأم حرد قيدنا وين ومريكان كأ نقدر يكتالا قدر تاس أي أودين يسميسو لبعتن كيسنا ولا صور دافينا دت كذا محويتو ودنك حكومة وودنك كشقة وحي سميناين سيدي سياسة أهان وقمدح بنانان لهاين محويتو جعنكا مركا سعودي مركا محال يري محويتو إيجيبتي محويتو إماراتك وحي دهين أنا جنوسو دبسجود haddaan nagu soo daba sujuudi weysana annaga aana soo raaci weysana muxuu ahayto waa ku jaraynaa jaridda la jaray qadar dhib weyna ugu jiro sabab saan hore u sheegay dhul ahaan aad bay u liidataa oo ayaguna way og yihiin taas Soomaaliya arrinteeda gadaalan ka gelina xoogaa I want to explain this qaybta kala rabaa inaan yara sharaxo lirbe yaa kale Turkiga yes Turkiga iyo Iran waxay saaxiib ay la tahay remember qadar waxay saaxiib la tahay Iran waxay saaxiib la tahay Israa'iil waxay saaxiib la tahay Mareykanka waxay saaxiib la tahay Turkiga waxay saaxiib la ahayd nimankan ay la degantahay golofka like taas macnaheedu waxa waa siyaasad bislaatay hadii laba nin oo is arki karin oo isnacab waxay rabaan ba sheegtaan ay isaga soo horjeedaano sida Israa'iil iyo Hamas oo kaleeto ama muxuu ahayd Turkiga iyo Mareykanka oo kale ama Iran iyo Mareykanka oo kale inaad hal miis inta soo fariisisid oo adiga muxuu ahayd gurigaaga ku wada hadlaan oo adiga dhexdhexaadiyahooda aan noqotid siyaasad ahaan adidani kugu jirtaa midaas dan waliba weyna kugu jirto sababtoo ah labadoodii midna muxuu ahayd kuguma soo degdegay adiga labadoodii saaxiiba la tahay marka waxa u soo baxday muxuu ahayd qadar Iran oo soo baxday waxa kale oo soo baxay muxuu ahayd Turkiga oo cuntada xitaa ay ku daabulooyaan sababtoo ah cuntada qadar laga cuno dhul yar waaye waa la soo dhoofis muxuu ahayd wadanka dhoofina lagu keenaa oo cunto ay ayaga ay sameystaan ma ahan lacag badan ay haystaan mid kale to qadar waxay sameeyeen wixii haday waxay gaaskooda waxay ku sameeyeen liquidated waxay ka dhigeen way yareeyeen oo biyo ka dhigeen methane gaska oo CH4 ka gaaska la dhaho oo muxuu ahayd kuwa kale oo very complicated oo chemistry ku jiro tiro badan oo dhib badan muxuu ahayd gaaska markuu crude ka yahay ama uu carrada uu yahay in la qaado in la wareejiyo dhul iyo tubooyin aad u waaweyn u baahan yahay laakiin markuu muxuu ahayd gaaska sidii kale to liquid ka ah laga dhigo aad bay u fududahay qaadistiisa qadar taas ayay sameysay sanadihii la soo dhaafay oo marka xagga dhaqaale ahaan way ka maarantaa wadamadan saasna ugama maaranto laakiin haddii gaaskeedu uu crude ahaan lahaa oo tubooyin waaweyn uu u baahnaan lahaa qadar basically xaloosha laga jari lahaa hadda lugta muxuu ahayd goynta hadda la gooyo darteed qadar muxuu ahayd dib aad u weyn gaari lahaa laakiin mar hore ka tabaabushaysteen gaaskoodu waa liquid muxuu ahayd ma ahan midka tubooyinka mara oo qaadistiisa iyo keydintiisu aad bay uga dhib yar tahay midka tubooyinka maro oo muxuu ahayd dhoobada camal ah kaasi dhul weyn iyo tubooyin waaweyn u baahan yahay marka Iran ayaa u soo gurmatay waxa u soo gurmatay Turkiga Soomaaliya soo hartay marka hawadiya laga xirtay nimanka badiya laga xirtay dhulkiya laga xirtay everywhere laga xirtay Soomaaliya marka maabka waa aragteen muxuu ahayto Sacuudiga wuxuu yiri nama soo mari kartaan hawadiya ka xirteen Soomaaliya qadar Soomaaliya way u baahan tahay sababtoo ah waxa maraya diyaaradaheeda horta Soomaaliya ma xukunta aviationka mar walba qaybaha duulimaadka Soomaaliya sidii loo soo qaxay dawlad loo dhiibay dawladahan intaan iska daba yimaanayo oo tirada badan oo Soomaalida ah oo hadba maalin boqol la keenay maalin ilaa hadda qolo haysatay ma jiro muxuu Soomaaliya duulimaadkeeda waxa laga xukumaa Nairobi markii uu qaxi dhacay Soomaaliya dagaalkii sokeeye uu dhacay qoladii loo dhiibay ayaa ilaa hadda hayso waxa hadda muxuu ahayd dawladan cusub oo farmaajo madaxweynaha u yahay waxa la dhahoyaa inay soo celiyaan ay rabaan
taasaa hadda la dhahoya saasaa jirto laakiin ilaa hadda sidii dowladdii maxamed siyaad barre looga markay dhacday oo muxuu Soomaaliya dagaalkii sokeeye uu ka dhacay muxuu ahayto looga qaaday qaybteeda duulimaadka oo Nairobi loogu wareejiyay muxuu ahayto 27 sano ka hor Soomaaliya wali kumaysa soo noqonin aviationka ama duulimaadka oo Soomaaliya aviationka ma xukunto haba yaraatee laakiin se muxuu ahayto Soomaaliya iyo Qatar inay ka dhaxayso siyaasad Qatar dana ugu jirto Sacuudiga koob maxay sameeyeen Soomaaliya waxay saareen pressure muxuu ahayto pressure ayay saareen waxay dhaheen haddii aadan muxuu ahayto Qatar xiriirka aadan u goynin muxuu ahayto lacagtii aan ka ballan qaadnay markuu madaxweyne Farmaajo imaanayo oo xawimaada ahayd kuma siinayno horta lacagay waayo hore ballan qaadeen jirto lacagay waligood keeneen ma jirto lacagta always way ballan qaadaan mana keenaan inta badan marka waxay dhaheen lacagtii aan ballan qaadnay anagu ma bixinayno haddii aadan Qatar aadan xiriirka u jirin oo anaga intayada kale carabta ah sababtoo ah Soomaaliya way ka tirsan tahay ayaga aadan u jirin sababtoo uga tirsan tahay don't ask me waxay uga tirsan tahay anima ogi way ka tirsan tahay marka waxay dhaheen haddaadan u jirin muxuu ahayto lacagtii ma bixinayno taasaa la iskuga Soomaaliya go'aan fiican ay gaartay waxay bannaankay ka istaagtay neutral aan nahay oo dhexdhexaad aan nahay ayay dhaheen waxay dhaheen haddii caawinaad anaga nolol kaga baahdo caawinaad anaga waa bixinaynaa muxuu dhexdhexaadin waayo caawinaad ma ahaya Soomaaliya wax dhexdhexaadinayso but like siyaasad ahaan waa go'aan aad u wanaagsan waaye Soomaaliya wax badan ayay muxuu masraxa siyaasadeed oo adduunka ay ka maqnayd oo ayada isku maqnayd oo ayada isku mashquulsanayd muxuu inay halkaas ay ka istaagto oo dhexdhexaad ay noqoto Soomaaliya dan ayaa ugu jirta siyaasad ahaaneed dhaqaale ahaaneed not so dhaqaale ahaaneed no dan ugu ma jirto Soomaaliya aad bay u liidataa abaar baa hadda haysata shuban baa ka jira muxuu ahayto wadanku dhaqaale ma leh shaqaale ma jiro shaqo ma jirto waxyaabo fara badan ayaa wadanka marka khaldan laakiin se inay siyaasad ahaan ay banaanka ay ka istaagaan dan ayaa ugu jirto kabacdi waxaa la yiri dawladda Farmaajo waxaa la yiri waxaan ku siinaynaa 80 milyan go'aankii ahaa inaad dhexdhexaad tahay dib uga noqdo way diideen 80 milyan leeyaa jiibsana carabta seriously aaday raqiis yihiin 80 milyan maxay goysaa wadan maxay goysaa waa pocket change waa lacag jeebka la gashtay aad bay u yartahay lacagta aaday u yartahay come on xataa like ani in muxuu ahayto shakhsiyan laxun wahayto qadar xiriirka loo jaro muxuu ahayto waa ka soo horjeeda Soomaaliya inay dhexdhex ahaato oo dhexdhexaadiso ayaa wanaagsan siyaasad ahaan ay dan ugu jirtaa sababtoo ah awal waxay muxuu ahayto loola dhaqmay Soomaaliya qofkii rabo uu jeebka ku ridanayo hadba gees loo riixi karo hadba yes for good reasons muxuu ahayto Cabdirasaaq yes siyaasad ahaan Soomaaliya inay banaanka ay ka istaagto ee dhahdo anagu dhexdhexaad ayaa nahay hadaa rabtaan inaad dhexdhexaadiyo noo imaada anagu caadinkan lama safanin kuwana lama safanin loo ogolaado muxuu ahayto diyaaradaha Qatar inay hawada Soomaaliya ay isticmaalaan Soomaaliya siyaasad ahaan dana ugu jirto dawladda marka degana xurmada helaysaa degana more respect gadaala looga istaagaya marka Soomaalida waa baahanahay yes dadka qaar waxay leeyihiin Soomaali hadaan anaga waa baahanahay lacagta yaro nala siina first of all horta marka hore lacagta in lagu siinayo 100% ma ahan oo guaranteed ma ahan haba yaraatee mid kale lacag aad u fara badan ay Sacuudiga ballan qaadeen waligood dollar lacag badan ay ballan qaadeen muxuu ahayd ma sabixinin mid kale nimankan akhwaan muslimiinka ah nimanka soo saarayba oo wahaabiyinta oo Sacuudi oo lagu eedeeyay everyday waa Sacuudiga qadar waxa in banaanka la istaajiyo aniga sida shakhsiyan aaminsanahay sababtoo ah ninka muxuu ahayd ambassadorka u fadhiya Imaaraadka Mareykanka iyo muxuu ahayd kuwa think tank ah oo muxuu ahayd soo saar siyaasadaha xajirka ah muxuu ahayd siyaasadaha xajirka soo saara email ee leeyihiin la haaga lagu sameeyay waa la soo saaray isla hadana wax yar ka bacdi muxuu ahayd qaybta idaacadda oo Turkiga ama Turkiga ma ahan Qatar
ayaa la hagariyay ayagana warar badanaa la soo saaray haddana wax yar ka bacdi saacado ka bacdi qadar waa la wada jaray marka waxa waaye UAE muxuu imaaraadku waxay rabaan Mareykanku inuu ayaga la safto inuu Mareykanka ayaga la jiro inuu Mareykanka ku ayaga ay muxuu ahayto jeebkooda ku jiro qadar waxay rabtaa inay banaankeeda taagnaato qadar waxa waaye anigu si wadanaan leeyahay halkaan aan taaganahay muxuu ahayto inaan banaanka taagnaado ayaan rabaa oo aniga anaa danaheyga u fakarayo adi waxay kula tahayna ma yeelay asaga waxay la tahayna ma yeelay ani waxay dan igu jirto ayaan raacaa waxay rabtaba ha ahaatee siyaasadda runtaana waa sidaas adi waxay danta kugu jirtaa la eegaa midda kale always remember mar walba waxaa xasuusnaataa dagaalada ka jira Middle East-ga muxuu hayto bariga dhexe ayo muxuu hayto meelo fara badan diin ayaa loo isticmaalaa diintu waxay noqotay gas ama dab aan damaynin oo loo isticmaalo dadka muxuu haysto oo sida muxuu hayto carabta aan cadaanka ahayn adduunka mar walba xasuusno reer galbeedku ma lahan resources ma lahan muxuu hayto khayraadkoodu khayraad ma lahan Afrikana waxaa lagu mashquuliyay poverty gaaja lagu mashquuliyay Afrika muxuu ahayto wadamadan muslimka oo lacagta haystana waxaa lagu mashquuliyay ayaga in la isku mashquuliyo iyo in diin looga dhiga carqalad oo hadba diin meel hor laga bilaabo qadar waxay awooday marka in aysan madax diineed aysan ku fakirin oo madax siyaasadeed ku fakarto qadar marka the next 20 years 20 sano oo soo socota ama 10 sano oo soo socoto powerful ay noqon kartaa taa wax aad u awood badan ay noqon kartaa ayadoo waliba wadan yara sababtoo ah qadar waxay falankeeda qabatay inay isku filnaato siyaasad ahaan dhaqaale ahaan dhul ahaan iskuma filnaan karto sababtoo aad meeshii ku yaalaanba ma ahan strategically dhul ahaan iskuma filnaan karaan laakiin siyaasad ahaan iyo muxuu ahayd dhaqaale ahaan way ka tabaabushaysteen mar hore in aanan ayagana qalinka ah qalin madow iyo gaal iyo muslim kaliya adduunyadan lagu kala bixinayo aan loogu dhigina mar hore ka tabaabushaysteen marka ninka reer waqooyiga ah dan uguma jirto in wadan muxuu ahayto aan reer waqooyi ahayn madax banaan lacag haysta aan qalin madow iyo qalin cad wax loogu dhigi karin oo diin humaageeda la gelin karin oo awood yeesho dan uguma jirto that's the bottom line meesha ugu dambayso taas waaye marka qadar taas ayaa lagu la dagay intaas ayaan qadar ka galaa marka su'aalo iyo dadka waxyaabo badan ay soo jeediyeen dawladda farmaajo inay banaanka ka istaagto aad bay u fiican tahay siyaasad ahaan dhaqaale ahaan no anaga dhaqaale ma haysano dawladdu lacag ma soo gasho haddii wax soo galaana waa waxaan la xisaabi la sheegi karin muxuu hayto wadanka hadda la soo dhisooyaa muxuu ahayto in la dhisi doono ilaaha og waxay dawladda maxay qaban kartaa waxaas oo dhan ilaahay ayaa og laakiin dawladda hadda waxay u egtahay inay waxyaabo aad u fara badan ee dardar gelinayso midda ahna inay banaanka ka istaagto go'aan u wanaagsan aad u wanaagsan waay siyaasad ahaan Soomaaliya okay so I'm gonna try to answer dhowr su'aalood qoladiina ay dhaaftay wax yar nimankaan travel banki waraa ka soo baxay madaxweynihii go'aankiisii muxuu hayto racfaankii u qaatay waa loo diiday case-kana Supreme Court-ka ayuu aadi doonaa waxaan kaloo rabaa inaan sheego Comey maalin dhaweyto markii muxuu ahayto khamiistii aan soo galay live-ka waa taa idin sheegay the only thing oo ka soo baxay Comey hadalkiisa idin dhahay waxa kaliya waxay ahaayeen nal horle waxay ku shideen Attorney General-ka I don't know ina xasuusataan in kala ma aqaano idin dhahay Attorney General-ka muxuu ahayd qareenka guud ayay tash ku shideen kaliya waxa kaliya la taawan karo oo muxuu ahayd dhageysigan ka soo baxay taas waaya idin iri exactly saasay u dhacday qareenkii toosha ku baxay asagii ku soo qadhoobsatay asaga lagu soo jeestay waa lagu dhagay berrito ayuu hiirin leeyahay asagii berriya la dhageysanooya marka waxa la rabay inuu cadeeyo muxuu ahayd Jeff Sessions berrito waxa waaye muxuu ahayto in waatii markii muxuu ahayto Michael Flynn la qeyrinayo hore oo asaga gadaal uga istaagay uu yiri anigu inaan dambi galo ma rabo recuse aan ka sameeynaya banaankan ka taagana haddana madaxweynaha
iyo markii la ceyrinayay James Comey waa tii baaritaankii ruushku waday waxaa lagu ceyriyay ayaa la yiri waxaa lagu ceeriyaa la yiri maxay baaritaankii ruushka uu baarayay ninkan ruushka iyo arrimihiisa dhan ani banaankan ka istaagsanahay uu yiri oo aniga ima hoos imaanayso oo anigu lug kuma lihi haddana ninkii la ceyriyay muxuu isla arintii laftirkeeda lagu ceyriyay asagana saameyn buu ku lahaa oo madaxweynaha laftirkiisa ayaa sheegay taas meesha iska qabatay ayaa la yiri waa la weydiinayaa berrito ayuu hiiran ku dhici doonaa hadday wax la taaban karo oo explosive oo wax qarxiya ama wax war weyn ay ka soo baxaan hiirinka tomorrow live aan soo galaa waa idin soo sheegaa haddii kaleeto barnaamijka waxaan ka dhigay khamiis kasta idin soo gelinaa hadday wax soo kordhaan maalmaha kale waa idin soo sheegaa insha allah aada u mahadsantihiin guys laakiinse mararka qaarkood markaan ama maalin laba maqnaado message la igu soo waalaa xagee jirta xagee istaagta shaqo kale ka shaqeeyaa I do other stuff waxyaabo kala duwan aan qabtaa marka superstar wuxuu analysis-ka Somaliland ka soo yeedhay xiriir Somaliland say xiriir ugu jiraysaa muxuu ahayd qadar maba ka dhaxayninba siyaasadda markii hore waxaa la jiraa muxuu ahayd qofay siyaasad waa adoo yiri islaan aan qabin aan furaa marka hore wax oo muxuu ahayd jiro oo muxuu ahayd siyaasadda ay ka dhaxayso ayaa muxuu ahayd xiriirka loo jiraa say Somaliland ay ugu jiraysaa qadar muxuu ahayd xiriir amiin muxuu ahayd ay u leedahay anaga qadar waa ka safanay sababtoo ah Somaliland wali aqoonsi maysan helin xagga caalamka mid kale qadarna muxuu ahayd xiriirba kama dhaxaynin markii hore haba yaraatee so meel qofaan xiriirka la dhaxaynin see u jiraysaa mid kale tan remember dawladda hawada meesha Hargeysa iyo Muqdisho ee muxuu ahayd maabka ee marayaan diyaaradaha muxuu ahayd ma xukunta Soomaalida Mareykan waxa laga xukumaa Nairobi so Supreme Court ka ma hubo let's see wixii dhici doona hadii aleed laakiin hadda rate-ka ama siyaabaha ay wax u socdaan haddadan muxuu uma eka madaxweynuhu inuu guuleysan doono oo hadda uu heli doono sababtoo maalin walba Twitter lugtu isku sii qabtaa asaga isku sii dilo asaga isku sii muxuu isku sii cadeeyo markay looyaradiisa I know like qofka asaga u shaqeeya must be the stressful job in the world shaqada ugu stresska badan adduunka inay tahay qofkii daaro job u shaqeeya sababtoo ah sidii wuxuu u dhaqmaa jirkii camal wax baad rabtaa inaad sheegtid inaad asaga qurux ka dhigtid aad rabtaa waxa hagaajinaysaa ka bacdi muxuu ahayd asaga intuu soo booday wixii oo dhan isku dhixyaaqina oo dhabqina oo muxuu ahayd wixii oo dhan oo khalkhalda hadhowti waxa waay haddana muxuu ahayd crisis control ina gashido oo wixii ay ilaalisid oo hagaajisido idaacadihii aan la hadashid oo dhan marka we'll see waa arki doonaa wixii ka soo baxay tomorrow hadii si waan idinku celinaa mar kale Jeff Sessions waa taan hore idinku sheegay toosh cusub ku ifay berritaana la wareysanayaa Jeff Sessions hadii berrita wax weyn oo explosive ay ka soo baxaan okay this is where I get distracted ma fiiriyo moogtaa waxyaabaha la soo qoro inta badan sababtaan u fiirinina waxa waaye hadalka iga kala dhuma anyway Cabdirsaaq wuxuu dhahay what happens if you terminated the specialka uu awooda ah inuu ceeriyo ninka loo doortay arrimaha ruushka inuu baaro uu leeyahay madaxweyne ahaan privilege uu leeyahay waay laakiin hadii uu taa sameeyo muxuu ahayd siyaasad ahaan intuu horta Donald Trump waa ninka wax dhibaba ilaa hadda waa la yahay oo lug weyn si weyn uga jiro laakiin markaasayto waxa lagu kacayaa xisbiga jamhuuriga dan uguma jirto inuu special counsel ka ceeriyo oo ninka loo arrimaha inuu baaro loo xil saaray inuu ceeriyo uguma jirto dan haba yaraatee xisbiga lagu kacayaa waxa leeyahay ninkan waa u jeedaan dadweynihii ya kacaayo nimankan remember doorasho soo socoto la sanadka soo socda waa la wada doorasho imaanaysa waa la dooran rabaa nin walba muxuu ahayd habartay ku jira oo muxuu kursigiisu ilaashanooyaa
marka ninkii raba inuu lugeeyo waaye ninka muxuu ahayd Donald Trump la safanaya midda kale hadda waxa kaloo jira muxuu ahayd Obamacare ka caafimaadkii lagu bedelayay waxay sameynayaan muxuu ahayd inay gudbiyaan ay rabaan markii bill saas u weyn sanadka loo gudbiyo waxyaabo laga bedelaa xisbiga minority-ga waqti baa la siiyaa muxuu ahayd waxba lagu daraa waxa oo kale taa la sameeyaa waxyaabahaas oo dhan ma sameynayaan ayaga waxay rabaan hoose inay ku gudbiyaan oo dadkii ay sharci uga dhigaan marka intaasan ku ekeena afura magaalada geeseed oo kala doonana waa mahadsantihiin habeen wanaagsan